السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين وايد السلام ميلو الباد شوكتان وعبد محمود قلا يا برنامج كيدين كي ما يشري معد كالنبضة يا بالشدة ولا لي البرنامج وحي نقصو قاده هنا دود دعدي مالين دويد وقبتين اللي يرادا عبد قولاد علمي دود داس وعبد هقامين أما ومقارنسا سو أبابولي waxaa ka qayb qaatay aniga oo ah Cabdi Maxamuud Qala iyo nin kale oo oday oo la yiraahdo Faniig Yuusuf Jaamac. Doodaasi waxay ku saabsanayd Soomaaliya xorriyadeeda waqtigii aynu ma garanaysaa xorriyadda inaynu qaadanay u diyaar garoobaynay ilaa markii xorriyadda aynu helay ilaa maalinka maanta bal in sidii aynu doonaynay iyo wixii aynu ku hamiyeynay aynu meel mareen oo inoo hirgaleen in maaragtay gaabis dhacay waxyaabaha sababay hadduu gaabis dhacay waxyaabihii inoo hirgalay wixii aan inoo hirgelin iyo waxa ay tahay inaynu samayno mustaqbalka si ummadeenu meesha higsanaysa ay u gaarto. hadalka idinku badin maayo laakiin waxaan rabaa doodda inaad dhegaysataan. dood runtii aad iyo aad u nuxur iyo ma garanaysaa muhiimad la weeye meelo badanna taabatay looguna talagalay in laga qayb qaato dabaaldega toddobaadka xuska qarannimada iyo madax banaanida Soomaaliyeed. marka ku soo dhawaada walaalayaal doodaas. wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamij aan ugu talagalnay munaasabadaha qiimaha badan ee 26 Juun iyo 1 Luulyo oo aad ogsoontiin inay ku weeyeen qof kasta oo Soomaali ah oo wadaninimo ku jirta ama ku abtirsada magaca Soomaalinimada. munaasabahan 26 Juun iyo 1 Luulyo oo ah munaasabado lagu xusuusto maalmaha xorriyadda ee Soomaaliya waa kuwa lagu dabaaldego isla markaana dib loo soo xusuusiyo halgankii loo soo maray iyo dhiigii loo daadiyay in wadankan uu noqdo wadan xor ah oo calan babanaya leh. waxaad la socotaan taariikhda markii laga soo bilaabo intii magac Soomaali uu jiray in markasta gumaysigu isku dayay inuu meelo kala duwan ka soo galo. waxaana jiray halgamo taariikhi ah ama taariikho dhaadheer oo la soo maray oo kamid ahayeen halgamadii Axmed Guray, Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo kuwii kale ee ka jiray meelo kala duwan oo wadanka ah oo ujeedadu ay ahayd in wadanka uu noqdo wadan xor ah oo ay dawlad Soomaaliyeed ka dhalato ugu dambeynta. laakiin marka fiirso sida maanta ay tahay duruufta qofka Soomaaliga ah waxa kugu dhalanaya su'aalo fara badan oo intooda badan ku xasuusinaya in haba yaraatee halgankii la soo maray aan sidii la rabay looga caanmaalin isla markaana ay u eg tahay in dadkii halganka soo galay maanta inkastoo inaga wada hooseeyaan uu yahay mid abaalkoodii laga dhacay oo sidii ay ugu haminayeen dawladnimada iyo Soomaalinimada aysan noqon mid hirgashay oo maanta laga hayo natiijo wanaagsan. qof kasta Soomaaliya oo goobjoog u ahaa taariikhii kulaa ee la soo maray ee dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya ee ka dhacay 1990kii iyo intii kale ka dambeysay dad badan oo Soomaaliyeed dhiigoodu oo si aan macno lahayn uu ku daatay ama gobonimadii ay ku haminayeen ay noqotay mid iyagu dhibaato ka soo gaartay waxay noqotay arrin qof kasta xasuusinaysa xanuunka ay leedahay isla markaana sida looga abaal dhacay ama aan loo abaal marin halgankii la soo maray.
لحدانكي لقويدين الديسي لحيا لباتنك جو قورمان لولاني لحديسا قورمان لباني قودي لوليا لبامي دولي قورمان لناني لحدانكي لقويدين الديسي لحيا لباتنك جو قورمان لولاني لحديسا قورمان لباني قودي لوليا لبامي دولي barnaamijkan oo aan ugu talagalnay in dib loogu eego xorriyaddii la qaatay iyo natiijadii laga gaaray waxaa ka qayb qaadanaya oo marti inoogu ah laba nin odayaala oo aan isleenahay waa ciddii ugu habbooneyd ee maanta barnaamijkan oo kale ahayd inay ka hadlaan oo lagu marti qaado sida aan horey u sheegay waa barnaamij aanu ku xusuusanayna dhammaanteen taariikhihii gobonimada iyo sida xaalku ahaa barnaamijka waxaa marti noogu ah maanta cabdi maxamuud qala oo khadka telefoonka kaga jira Calgary Canada iyo Fanik Yusuf Jama oo khadka telefoonka kaga jira magaalada Lakeville ee Minnesota magacaygu waa cabdi guulad cilmi aniga ayaa idin daadihin doona oo hadalka inoo kala qaybin doona walaalayaal ku soo dhawaada barnaamijka waad mahadsantahay cabdi waa Fanik Jama dhammaan dadka ummadda Soomaaliyeed oo barnaamijkan gaari doono waan salaamayaa dhammaantood waxaan uga tahniyadeynayaa iyadoo xoogaa dhacsan maalinkii calan Soomaaliyeed oo kow la taagay oo June 26-keedii maalinkii ay June 27-keedii oo ummad kaleeto oo Soomaaliyeed xorowday June July 1st ama bishii Luulyo 1-deedii 1960-kii oo laba ka mid ah ummadihii Soomaaliyeed oo xorriyadda qaatay ay dowladdii dimuqraadiga dowladdii Soomaaliyeed ay inta isku biiran sameeyeen mar kaleeto tahniyad ayaan idiin soo jeedinayaa maalmahaas xorriyadda waanad mahadsantihiin cabdi ku soo dhawow Soomaaliyeed inay ka hadlaan danahooda iyo maslaxadaha iyo wixii wadankooda u hagaagsan maalmahana waa maalmo weyn oo kolkii dadka Soomaaliyeed ay gumaysiga ka xoroobeen oo iyagu bilaabeen inay isu taliyaan marka tahaniyad iyo bogaadin baan dirayaa taas waa mid labaad waxa weeye waa laga maarmaan dadka Soomaaliyeed inay fikiraan oo ay eegaan maanta inay joogaan wixii ay doonayeen dadkii xorriyadda u halgamay inay gaaraan ma gaareen mise waa ka gaabiyeen taa waa laga maarmaan inay eegaan waxaana muuqata runtii inaanay kolleyba arrimuhu ahayn sidii aynu jeclaan lahayn oo wax badan oo dib u dhac ahi ay jiraan laakiin ay yihiin wax laga gudbi karo oo looga gudbi karo in la midoobo oo la isu tago oo la aqoonsado inay jirto dan guud iyo maslaxad guud oo qof walba Soomaaliyeed ay tahay inuu gacan ka geysto si loo suurageliyo ay isla markaana tahay in dantaa guud marka la helo qof walba uu ka faa'iideysanayo oo uu faa'iido iyo magaranaysaa wanaag ugu sugnaanayo taasi loo gaarana waa laga maarmaan dadka Soomaaliyeed inay midnimo iyo madax magaranaysaa daacada iyo magaranaysaa si adag u shaqeyso oo shaqo wanaagsan qabata arrimaha aynkaas inay meesha yimaadaan waa laga maarmaan waana ku dhiirigelinayaa runtii dadka Soomaaliyeed inay isku dhinac u jeestaan oo bal tilaabooyin ay marxaladahooda iyo duruufahooda wax kaga bedelayaan runtii inay qaadaan waayo cid kaloo inoo imaanaysa cid kaloo aynu ka sugeynaa inay innaga wax inoo qabataa ma jirto Soomaalidu waxay tiraahdaa sacabo biyo sacabadaada looga dharkaa waxa macnaheedu yahay adiga unbaa wax qabsan kara waxay kaloo yidhaahdaan far keliya fool ma dhaqdo oo macnaheedu yahay haddii keli loo taagnaado waxba taasi suura gelinaysa marka waxaa ka habboon in la isu tago si wada jira wax loo qabsado marka waa ku soo noqon doonaa laakiin hadda halkaasaan ku joojinayna insha Allah
dahangunimiyo dhibahata mudho doomaha layga saaray dhinacyagaay daara hartan waxyeelaadihi dhaqdhaqe caalanka dhidbaysow maa soo dhicine dhegaystayaal waxaynu weli bartamaha kaga jirnaa barnaamijkii aanu ku falanqeynaynay doodii ku saabsaneyd munaasabadaha isuwan ee 26 juun iyo 1 luulyo oo ay ka qayb qaadanayeen cabdi maxamuud qalac iyo fanik yuusuf jaamac anigoo ah cabdi guulad cilmina aan idin xiriirinayay marka dib loo eego taariikhda xorriyaddii maanta waxaa laga joogaa 64 sano 64 sano marka lagu dheerariyo cimriga qofka wax yar ma aha muddo gaabanna ma aha marka 64 sano in aynu ka liidano markaynu xorriyadda qaadanaynay maanta oo 2024 la joogo maxaa lagu macnayn karaa miyaa la dhihi karaa xorriyaddii waxba kama inaan faa'iidin oo khasaaraynu ka qaadnay miyaa la dhihi karaa waxbaa naga qaldamay oo annaga dhexdeena ayaa u sabab inaanu heerkan maanta aynu joogno sidee lagu macnayn karaa qofkas sidaad ku tilmaami kartaan okay horta xorriyadda waa loo baahnaa oo dad waliba inay xor ahaadaan iyagoo ayagooda ka tashadaan oo aan cidina cadaadin cidina wuxu sheegin waa wax habboon weeye cid waliba sidaasay maaragtay hanigeedu yahay oo ay maaragtay taladeedu tahay marka dadka Soomaaliyeed markay xorriyadda dooneen iyagu waxaan u maleynayaa xaq bay u lahaayeen hase ahaatee hadday arrintu tahay وكرتي ما أقول على من جنين نسمع ملو الدولة نسمع أصيل الدنيا عن مارك هرمر وسمعنا كنتي وين أقول على مي لكن عبدنا دي بدأ بينه وبينك صدق كي سنة أبوه رئيسي ومضوا حوالي قبستي وحبلان بعيس بدلي جامعة دي بستي شكالة بدن وفرق بدن والدولة دعبة لسنيجي أو مكان سامي خير يوم إذا بقى وشغال نستي شدد على البحية بيرا على الطريق ولا مقالوين بعد سنة يعني سيدي قنبلها كلا أودا غميين بين عرمر السميني شرف بين ولاهين ما يلوى البقى ودن كالصوماليات دad كالصوماليات سيدي وحوق السنيين حمان بيهليين وهيدي من صوماليا صاحب كيهو مريكان كتوغي سيدي تمهدكي أرضي بوحالكا كاحا مكاسي وحيدي إذا ولي صومالي دون كتب السنة وحالكا الله صدري وحيدي لحدا يتطبو ودن دad كالصعودة هي هالكا أكاديمية كوري جيرين ومن البكيمة كان دي ربي فصح إنه صوب بعضه والدواء ودنا الصومالي بتاعي كل شيء تعيا والله قرابة أقدر كأني معرفتي كسو قدام أنت كلا دوم حاليا ما في سكس وقات الصوارد يا عين كا يو عين كاس وخلا مركا حريتي وحوي مقاومة لكن هذا نوعها مقطع إنه يتبودا قلنا يتبودا أنا ولا فهمي ترى واحد كانت لكن ما أها وحرنتي ina qeexaya oo sidaas aynu nahay ma aha waa waxaynu ka gudbi karno oo la doonayo inaynu garanno sababtii aynu uga gudbi lahayn inay inaga inagu xiran tahay sababtoo ah dadka Soomaaliyeed markay xorriyadda qaateen maanta ayay ka aqoon badan yihiin ka dhaqaale badan yihiin ka tiro badan yihiin ka waayo aragnimo weyn yihiin yani wax dhinac walba adkayto maanta aynu ka horeyna marka rajadu waa jirtaa kaliya waxay u baahan tahay inaynu is-aamino inaynu helo dad wanaagsan oo inuu hogaamiya oo daacad ka noqdo waa mahadsan tahay waxaan usoo jeesanayaa fanik yuusuf jaamac waxaad moodaa saaxiibkay cabdi markii uu ka hadlaya dowladnimada iyo qarankii dhismay iyo ciidamadii dhismay iyo warshadihii la hirgeliyey inuu ka hadlayo xilligii toddobaatanaadkii ama xilligii ka dambeeyey kacaankii waddanka ka dhashay laakiin markaynu dib ugu noqono lixdamaadkii su-aashu waxa weeye waddanka iyagu uu xorriyad la qaatay wadamo badan oo Afrika ah oo 1960kii xorriyadda qaadanayay Soomaaliya ama dadka iyagu intee in la eg buu diyaar u ahaa in markaa xorriyad ay qaataan بسم الله الرحمن الرحيم
horta Soomaaliya as a country xorriyad inay qaadato diyaar waa u ahayd wadanku mushkiladdu wadanka ma ahayn mushkiladdu waxa weeye dadka Soomaaliyeed diyaar ma u ahaayeen oo xorriyad inay qaataan ma hanan kareen oo dowlad ma maamulan kareen weeye su-aasha haddii si saxa oo aan mujaamalo iyo qurqurxin lahayn looga jawaabo dadka Soomaaliyeed diyaar xilligaas uma ahayn waxyaalaha sababay inaynaan diyaar u noqonna way badnaayeen مثلا xilligii macnaha mar horeyna xorriyadda Soomaaliya u dagaalantay doontay xataa loo codeeyey intay aan trusteeshipka la gelin adduunku waa u codeeyey raggii Soomaaliyeed iyo gabdhihii Soomaaliyeed oo xorriyadda u soo halgamay oo macnaheeda garanayay oo jeclaa oo si geesinimada ugu soo halgamay dadkii ka codeeyey ma ayna يعني iskama iloobin waxaa keenay مثلا talyaanigii in koonfurta loo dhiibo Soomaalidu ayadaa dalbatay inay doortaan wadanka gaarsiin doona trusteeshipka 10 sano hayn doona haddii aynu fiirino wadamadii Yurub oo dhan baa joogay Mareykanka joogay waxaa joogay Ingiriiska talyaaniga iyo Japan iyo Germany saddexdii wadan oo dagaalkii labaad ee adduunka looga soo guuleystay oo ayaga laftigooda gacanta lagu hayo ayay ahaayeen talyaanigana Yurub baa gacanta ku hayay Japanna waxaa gacanta ku talyaaniga iyo maxaan ku idhaahdaa Germankana Yurub iyo Mareykanka ayaa gacanta ku hayay maxaan ku idhaahdaa Japanna Mareykankaaba tegay oo gacanta ku hayay laakiin adduunka oo dhan ayaa waardiyeynaya si ayna dagaalka loo radin wadan adduunkoo dhan la dagaalay oo ka hor yimid oo awalna aan awood iyo taariikh culus gaar u lahayn midii horeeto oo soo burburtay oo la wadaagay Romanka mooyaane markaan dambana dhaqaale ahaan u baaba'san sumcad ahaan u baaba'san asaga laftigiisa dowladnimadiisu ayna fadhin ayaynu dooranay inagoo ku xumaynayna wadamadii inaga codeeyey marka dadkii Soomaaliyeed xorriyadda raadinayay aweer bay ahaayeen way fahamsanaayeen waxbay iska dhicinayeen way dagaalamayeen laakiin dagaalkooda inay inta pride-kooda liqaan waxaan wax ka baran karno oo systemkii inala dhisi kara system shaqaynaya oo system dawliya inaga caawin karna inaan fahmno inaynu dooranay ahayd marka waynu doorasho xumayn marka aynu dooranay talyaaniga inuu koonfurta gaarsiiyo trusteeshipka 10 sano waxay dhammaatay ayadoo talyaanigu weli isku keendirayo talyaaniga oo weli inagii qabiil inoo kala qaybinaya oo xuduud inoo samaynaya oo qabaa'ilkii kale qaarba maaragtay meel gaar kula soo heshiinaya oo wuxuu ka faa'iideysan karo ka faa'iideysanaya ayaa 10 sano dhammaatay ayadoo wax uun xafiisyaha dhisan yihiin laakiin system weyn oo shaqaynaya oo shacabkii la isku dayay in la fahamsiiyo dowladnimadu waxay tahay ayna dhicin waxaa dhacday markii xorriyadda la qaadanayay baarlamaankii ugu horreeyey oo Soomaaliyadoo la dhisay cid walbaaba yacni dadka rabay oo yiri inaan galaan rabaa waa la tirin karay gobollada qaarkood waa loo soo ducaynayay warniyo ducaan kuugu daraynayo odadood lagu masal meesha la oranayay 4 sano ka bacdina waa lagu dagaalamay markii la ogaaday meesha mushaarkeedu intuu yahay iyo noloshii qofkii galay
dowladdii la dhisay ilaa iyo maanta dowladda inoo dhisan waxa dowladnimadu tahay iyo dowladnimada cidda iska leh iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda xiriirka inay ka dhaxaysa ah iyo xuquuqda shacabku leeyahay iyo waajibaadka saaran in waajibkooda loo sheego maaha weligood shacabka Soomaaliyeed ma helan cid xuquuqda ay leeyihiin u sheegta si ay dowladda si fayow ula xisaabtami karaan. waxaan isleeyahay waxaa munaasiba markan oo kale in la sharxo muddada kala guurka ah ama u diyaarinta dowladnimada ee 10 sano ka horeeyay 1960kii ee dowladda Talyaaniga looga dhigay inay gaarsiiso ama dowladda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ay gaarsiiso inay dowlad noqdaan oo uu dhowr jeer ku celceliyay Fanik in taariikh ahaan aan ula jeedo oo aan doonayay in dadku ogaadaan inay jirtay 10 sano oo ka horeysay 1960kii oo Talyaanigu ay doorteen doorashadaasna dad badan baa aaminsan inay u sabab ahayd caradii Ingiriisku uu ka carooday inay dhulka Ethiopia hoos yimaado maanta ee loo yaqaano Ogaadenia ay ku dareen Ethiopia ay u siiyeen isla markaana dhulka kale xuduudda ah ee loo yaqaano NFD iyadana ay Kenya ku dareen oo yiraahdeen dhulkan Kenya iskale taasna ay keentay doorashadii ay dadka Soomaaliyeed doorteen in Talyaanigu gaarsiiyo muddada kala guurka ah. waxaan soo noqonayaa Cabdi Maxamuud Qalac su'aasha ku weydiinaya waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa Quraankii alif ka xumaada al-Baqara kama hagaago arrinta ah doorashada aynu doornay Talyaaniga ma isleedahay dhibaatadoo dhan iyada ayaa gun u ah. waxaan u malaynayaa siduu Fanik Jaamac sheegay runtii inay khalad ahay Talyaaniga in la soo celiyo Talyaanigu 1941 Ingiriisku ka saaray wadanka dagaalkii labaad siduu Fanik sheegayna wuxuu ku jiray wadamada jiro tabar weyn iyo wax weyn waxay ma jiro daacadnimada lama soo noqonayo inuu danaha Soomaalida ka shaqeeyo oo markii xorriyadda loo dadaalay markii la yiri wadankan ma gumaysanaysa laakiin uu diyaariga inay ismaamulaan iyo sidii gumaysto oo kale ay u dhaqmiyeen inuu dadka kala saaro inuu qolo soo jiito inuu isku dayo inuu sii dheeraysto muddada uu joogo waxyaabo badan oo caynkaas ayuu kunti ka shaqeynayay waa jirtay waxyaabo uu sameeyay oo ma garanaysaa bal inuu dad wax baray oo wadankiisa u diray inuu xoogaa ma garanaysaa macaadiyo iyo wax sameeyay inuu wax maamul u xoogaa dadku uu sameeyay baarlamaankii in la sameeyay dhowr iyo kontonkii waxyaabaha waa la qabtay khasab bayna ahayd inuu qabto sababtoo waxyaabahaas waa lagu khasbiyo wuxuu ka fogaan karo ma ahayn laakiin ma ahayn daacadnimada isaga waday oo uu doonayay in dadka Soomaaliyeed maslaxadooda ka shaqeeyo runtii waan ku raacsanahay arrintaas Talyaanigu inay ilduuf ahayd dadkii Soomaaliyeed oo markaa doortay anigu wax runtii ku hogaaminayay ma aqaan laakiin waxaan qabaa in Ingiriisku uu dhaami lahaa baan qabaa 100% uu dhaami lahaa haddii aan ku noqdo arrintii xorriyadda diyaar ma u ahayn inaynu qaadano hataa wax ka yiraahdo horta kartidii ma jirta aynu wadan ku maamuli lahayn kartidu waa yahay runtii laakiin wadamo badan baa inala qabay oo Afrika ka mid oo caynkaas oo kale aqoontooda u hooseysay dadka magaalooyinka ku nool u yaraayeen waxbarashada u hooseysay dhaqaalahooda u yaraa haddana way ismaamuleen wax kasta ha noqotee waa dowlad iyo magaranaysaa nidaam bay maaragta samaysteen innaga waxaa keena curyaamiyey waxa weeye is-aamini la-aan dadka Soomaaliyeed ay is-aamini la-yihiin oo qof walbaa u arko qofka markaa xafiiska joogaa inaanu daacad u ahayn dadka inuu u shaqeeyo ma garanaysaa isagu danaha khaasa leeyahay uu qabiil gooniya u xaglinayo uu caynkaa sharciga aanu raacayn dhibaatooyin baa iska jira la doonaya dadka Soomaaliyeed ka fikiraan inay xal u helaan oo si daacadnimo xal ugu helaan marka anigu su-aasha haddaan soo gabagabo waynu ku khaldana inaynu Talyaaniga dib soo celino oo mahadsantahay waan kugu soo celinayaa kubadda xaggaaga oo soo riixaya Cabdiyow ma la dhihi karaa marka aad fiiriso qofka Soomaaliga ah bilowgii xorriyadda ka soo bilow xilligii dhexe dowladnimada qofka Soomaaliga ah marna waxaan la yiraahdo wadaniyadda oo qofku inuu danta guud ka hormariyo danta gaarka ah ama danta wadanka uu ka hormariyo tiisa
qofka Soomaaliga inaysan dareenkiisaba ku jirin ma la soran karaa walaal waxa weeye waa inagu yartaa runtii markaan daacad ka noqdo arrintaas su-aashaas waa inagu yartaa in maslaxad guud iyo dan guud dadku u wada istaagaan oo u hoggaansamaan oo qofku uu isagu isdiro runtii waa inagu yartaa waddanka gudihiisa hadda maahane dibadday ka muuqataa halkaan magaaladaana joogo waxaan isku dayaa bal dadka Soomaaliyeed inaan organize gareeyo oo inaan gaaro warbashada dadweynaha kale u dhaqmayaan aynu u dhaqano caynkaas oo isku xiran oo dhaqaalihiina bixiyo oo waqtigiina bixiyo oo tabaruca waa adag tahay in ma garanaysaa aad ka heshid darbanaan ama dowlad ah inay hawsha isagoo qofku u arkayo qayb waa inaan ka noqdo waxaan dan baa iigu jirta xataa markii ugu yaraato dan waxa iigu jira ah yani tayd inaan muuqdo wax ahay waa yahay marka inaan Soomaalidu ay xaq u hesho bal cadaalad darrada in lala dagaalamo oo qofka awoodda haya la xadido wuxuu qabanayo iyo in qabiilka la xadido qabiilka laftiisa waa in la xadido iyo sidoo u shaqeeyo hadda waa anarkisti meesha anarki way noqotay haddaad fiirisid hadda Soomaaliya qofka iska soo boodaya balaayo u hadlaya cidda fateen ma jirto shir buu abuuraya waxyaabaha caynkaas ilaa la xakameeyo oo ma garanaysaa daacad laga noqdo xakameyntooda dadka ummadda madaxda u noqonayaana ay si daacada ugu society waa la bedeli karaa laakiin waxaa loo baahan yahay wixii lagu bedeli lahaa oo in la keeno oo lagaga shaqeeyo oo la fuliyo dadku waa qaabilayaan marka oo sharciga ma garanaysaa loo sinaado oo qofna aan loogu yaxan oo qofna aan lagaga xishon taasaa la doonayaa hadday taasu meesha timaado waxyaabahan kale oo dhan waa la hagaajin karaa dhalatay xornimadii dibada u aso dhalatay xornimadii dibada u aso hadisna taweligeed oo yaanay dhelin hadisna taweligeed oo yaanay dhelin dharar waxaanu joognaa nolosha iyo dhimashada aan wuxuu dhaxaynino aan ku dhiiranayne dharar waxaanu joognaa nolosha iyo dhimashada aan wuxuu dhaxaynino aan ku dhiiranayne dhageystayaal waxaynu weli bartamaha kaga jirnaa barnaamijkii aanu ku falanqeynaynay doodii ku saabsaneyd munaasabadaha isuwan ee 26 Juun iyo 1 Luulyo oo ay ka qayb qaadanayeen Cabdi Maxamuud Qalac iyo Fanik Yusuf Jaamac anigoo ah Cabdi Guulad Cilmina aan idin xiriirinay soo jeedinayaa Fanik Jaamac su'aasheedu waxa weeye saaxiib waxaa jira xilli Soomaalinimadu ay gaartay meeshii ugu sareysay xilliga la qaadan doono gobonimada iyo wixii ka dambeeyay laakiin mar dambe ay arintu dhiica yeelatay oo wax naga qaldameen maxaa sabab ahaa in qofka Soomaaliga ah oo marna wadaniyadiisu sareyso oo magaca qofka Soomaaliga wax ku raadsaday ay noqoto magaca Soomaaliyay markaad fiiriso dadka taariikhda qoraa waxyaabaha ay ka hadlaan oo ay kamid tahay si Carabiga ku qoraa anashiida Carabiga ku qoreed wadanka ka hadlaysay maartay dadka lagu dhiirigelinayo kulli waxay ahaayeen kuwa ku saleysan wadaniyad haddana waxaad aragtaa mararka qaarkood in qabyaaladii ay ku xog badan tahay xataa sida lagu dhisay baarlamaankii u horeeyay kii lamida marka sidee loo kala saari karaa ama qofka Soomaaliga looga dhaadhicin karaa in dantiisu ay ku jirto in wadaniyada iyo loo hormariyo wax walba
بسم الله الرحمن الرحيم. horta haddii kolley haddii aan nin fiicanahay oo aan halkaas keeni karo mar hore aan keeni lahaayo waddanka waan hagaajin lahaa. Ha ahaatee xaqiiqo ahaan waxaa jira waxyaalo badan oo ummadda Soomaaliyeed ay u baahan tahay maanta inay bilowdo si mustaqbalka jiilalka soo socda hadda arrinta aad ka sheekeynayso iyo sifooyinkaas ay u yeeshaan. dadka Soomaaliyeed dad ahaan dad aad u fiican wey, wax shaki igama jiro. ummadda Soomaaliyeed ummad ahaan ummad aad u fiican, very active ah, waxtar leh, waxquur leh, maxaan ku idhahdaa capacity ay hadiiba wax ku barata leh. wax in ay qiimayso oo miisayso taxliiliso awood maskaxeed oo aad u fiican oo ay ku taxliiliso leh. ha ahaatee waxay u baahan tahay jihayn bay u baahan tahay. anigu waxaan soo noolaa saaxiibadaydii 12 sano annagu aan iskuullada ahayn inaanan isqabiil aqoon ka arin. maxaa yeele ceeb bay ahayd in la yidhaahdo yaa taha, waa laga xishoon jiray. laakiin qabiilkii dowladnimadu waa laba system oo labaduba taariikh dheer leeyihiin, oo labaduba isku hal baawar ku tartamayaan. awoodda shakhsiga Soomaaliga baa labaduba ku tartamayaan. shacabnimadiisay ku tartamayaan, daacadnimadiisay ku tartamayaan, waxtarkiisa iyo xogeyntiisay ku tartamayaan. mar walba yaa ku adkaada, waxaa ku adkaada qabiilkiisa ku adkaada. sababta ugu adkaada waxa weeye qofka Soomaaliyeed inta badan ma helo wax qabiilkiisii inuu dib ugu gurto ku khasbo mooyaane wax ka koriya inta badan ma helo. aan waxyaalo badan oo xuquuq qofka bini'aadanka u leeyahay helin, aan fahamsanayn, aan la fahamsiin, aan xuquuqdiisa loo sheegin, aan dowladnimada loo sheegin, ninka madaxda oo ah iyo asaga inay isku mid yihiin, nin walbana shaqaale yahay loo sheegin, inuu mudan yahay inuu mushaar qaato saacaddii uu shaqeeyo aan loo sheegin. marka baahidii waagaas la qabay maanta waa la qabaa. waxaan qabaa oo ummadda Soomaaliyeed meelay joogo u soo jeedinaya, oo aan qoraayaasha Soomaaliyeed u soo jeedinaya, oo dowladda iyo hay-adaha jaangooyada u soo jeedinaya, wasaaradaha tacliinta oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka u soo jeedinaya in qof walbaaba isku dayo. guddiyaal loo saariyaa, komiteyaal loo saariyaa, shakhsiyaad loo saariyaa in loo qoro ummadda Soomaaliyeed sheekooyin yaryar oo gaagaaban oo ilmaha kindergartenka loo akhriyo, oo nuxurka uu ku dhammaanaya wadaniye yahay, oo the good guy iyo the bad guy dadka kala tusinaya, oo cunug walbaaba rabayo inuu ku sifoobo kaas, oo cunug walbaaba macnaha sida kabtan maaragtay America oo kale fikir saas ah oo Soomaaliyeed oo halyeeye ah oo Axmed Gurey oo kale iyo sheekooyinkii dheer Sayid Maxamed Cabdilla Xasan iyo madaxdii kale oo Soomaaliyeed oo taariikhiyan in ay halgamayaal ahaayeen loo arkay oo dhan dhammaan sheekooyin yaryar inta lagu soo koobo in wadaniyada lagu fahamsiiyo. horta kuwa yaryar hooyo walba af Soomaaliga waa taqaanaa, carruurtaada habeenkii u akhrin la yidhaahdo intay u akhriyayso ayada laftigeedana inay wadaninimada ku beeranto. aabuhu inuu u akhriyo oo intuu u akhriyayo laftiisa wadaninimada ku beeranto oo la bilaabo dadka in wadaniyada la baro. waa mahadsantahay. no waa arrin wanaagsan in dadka wadaniyada lagu beero, laakiin su-aashaan usoo jeedinayaa cabdi qaraac waxa weeye, cabdiyow wadaniyad waanu fahamsannahay sida wadaniyadu ay tahay wax muhiim ah in qofka inuu wax walba ka hormariyo wadankiisa ay munaasib ay tahay,
laakiin waa sidee dariiqa ugu habboon oo ummadan lagu gaarsiin karo fariinta iyada ah walaal waxa weeye waa siduu sheegay jaamac siduu sheegay waxaan iskama yimaadaan waxan waa in la abrigo waxaynu ardada ugu samaynaa sidoo markaynu u samayno ama manhaj maxaa lagu qoraa calankaa laga hadlaa wadaniyadaa lagu hadlaa yani ummad isku meel waxyaabo badan oo wadankoo dhan ay wada leeyihiin baa laga hadlaa waxyaabo badan oo magaranaysa dadkoo dhan ka dhexeeya oo soo wada jiidanaya laga hadla horta waxay u baahan tahay waxaanu in barnaamij weyn oo jiro oo dadka lagu wacyigelinayo oo loogu sheegayo waxay yihiin iyo dantooda siday mid u tahay waxyaabaha uu jaamac ka hadlay baa kamid a oo in hoosta laga soo bilaabo markay yaryar yihiin ba caruurta ilaa heerkaasoo dhan waxaa kaloo muhima in la qeexo oo ummadan waxay isku xiraya in la qeexo la ilaaliyo waa laga maarmaan haddaynu sii dayno qabiilka ama ninka qabiilka sheekani ugu furaba iska sheego uu fidnadiisa iyo wixiisa xarga goosto dhibaatay taasu keenaysaa waa inay jiraan wax adag oo ilaaliya qarannimada iyo isku xirnaanta ummadda wax ilaaliya waa in la helo waxaa kale oo iyana muhiima in dadka ummadda dowladda hormuudka ka ah inay wadanka daacadnimo ku dhaqdaan oo ay jid u jeexaan arrimaha hadda uu ka hadlayay jaamac oo markii dowladdaasi ay waxaa gaartay يعني vision bay lahaayeen ama aragti bay lahaayeen dadku wayna rabeen inay fuliyaan inagu marka hadda taa aynu sameynaynay iska ugu qabsaa la oran jiray volunteerismku halka wadamadan aad buu ugu weyn inagu muruqeynaynu maalo waayo dadkeenu intaasay haysteen laakiin halkan dukaanka markaad tagto wax garanayso waxaa $2 bixi tijaarkooda intay sadaqa bixinayso waad yaabi waxaasa wadankii lagu dhisaya marka inagu lacagtaa maynahay laakiin maxaynu haynay muruqeynay mahayn muruq baynu haynay marka wix dadka soomaaliyeed ay hayeen ayaa la weydiisay oo la yidhi warkaale ay wax ku qabto oo kaga qayb qaata wadankiina dhismihiin waana ku guulaysanay laakiin waa ku raacsanahay jaamac inuu jiro nidaam sharci qofka xadeeya awoodiisa iyo inuu qof walba rool buu leeyahay roolkiisu maaha inuu ka fiican yahay dadka kale laakiin hawl baa lagu igmaday hawshaasaad qabanaysaa qof walbana meeshuu joogo lagu ixtiraamo lagula xisaabtamo arrintaas waxay u baahan tahay runtii dad karti leh oo fuliya waxaynu u baahannahay looyaro markii maaragtay waxyaabahaasoo kale ay arkaan u taagan waxaynu u baahannahay garsoor cadaalad u qaadaya haddii maaragtay waxyaabahaasoo kale laga soo kasoo qaad ninbaa maanta musuq maasuq ku kacaya qabiilkiisiibaa maaragtay ku hadooganaya oo maya lama dacweyn karo waxaa loo baahan yahay waxaasoo kale waxyaabahaas waxaynu kaga gudubno qof baa magaranaysaa kasoo qaad madaxa kuwa gobolada joogo kale hadda soomaaliya qaar baa iska safra reerahoodii bay wadanaya 40 maalmood bay maqnaanaya lacagtii xajada lacagta adinkaa isticmaalaysay ay ka timi lama weydiin karo waxaynu u baahannahay marka dad waxaasoo kale la xisaabtamo oo saasoo kale u qabta anugu qisaan idiin sheegay halkan kanada aan joogo muddo hore malaha 10 sana laga joogo gabar wasiir ahayd baa lendership u tagtay hotel bay degtay hotelkii ay degtay koob orange waxaa la gadayay 16 pound hadhow markii ay soo noqotay baa halkan warbaahintii qaadatay oo layidhi war maxay samaysay waxay heli kartay baa layidhi sideed laga siiyo pound half price iyana intaasay ku dhaqaaqday gabadhii shaqadeedii bay ku weyday mid kale aan idiin sheegaya nin baa gobol ka ahaa wasiir markaasaa waxaa la yidhi xaafado ma garanaysaa yani aan habboonayn bu habeenkii marmay labadii habeenimo isagoo marayaa la arkay waxaafado dadka moogtahay dan yartaa degan yihiin oo garaag iyo balaayo iyo dadka baajirkooda waxaa lagu tuhmayo gabarow maxaad halkaa u socotay baa layidhi oo miyaanay xor ahayn biyo meeshaan raba aanan mari karin may xor waa tahay laakiin annagaad noo shaqaysaa waanu danaynaynaa inaanu ogaano noo sheeg ninkii waxaa lagu khasbay inuu iscasilo markuu iscasilay ayaa waxaa lagu yidhi okay mar hadda marka bal arag inaanu wax kaa weydiino hadda 3 o'clock mar meeshii haddaad rabtid marka waxay kutusaysaa walaala xisaabtanka iyo dad maxaa xisaabtankaas ku imaanaya maaha dowladdu inay dadka ninkaa dacweysay ama gabadha wasiiradda ahayd shaqadeed waa dad waa civic ya waa civic engagement baa jira dadkii warbaahintii baa danaynaysa looyaradii baa danaynaya iyagoo dowladdiiba ka socon inay dalkooda hayaan oo saa ku hayaan ilaa aynu heerkaa gaaro oo ka shaqeyno waxyaabahaasoo kale inaynu samayno runtii waxaynu isaga jireenaa gabdhaclayn waxaana waajib ah in sidaa la sameeyo dadka soomaaliya hadda anigu waxaan ka fikiraa bal inaan looyarada soomaaliyeed idhaahdo war isu tago oo kambaniyo waaweyn oo looyaraa sameeya oo gobolada ka fura oo ma garanaysaa faan sameeya ardada jaamacadaha ku jira looyarka baranaysa markay 3 sano sanad saddexaad oo kaleba soo gaaraan
ama sanadka labaad cases yaryar oo iska simple ay qaataan oo maxkamadaha iyaga eedka waxa meelaha la yiraahdo kale ay lacagta ka siisaan oo ay ku shaqo bartaan oo aynka loo soo koriyo laakiin sharci iyo xoojiyo oo idinku hadiyo dadka ummadda maslaxadda ummadeeda eega cid walba daba gala inaynu yeelano ma garanaysaa account organizations oo kale oo la xisaabtanta audit ma garanaysaa ka madax banaan ninka ma garanaysaa baarlamaanka maaragtay reportkiisa siiyo oo ka madax banaan executive-ka waxyaaba caynkaas inaynu yeelano laakiin hadda waxaan oo dhan waxa weeye madaxda sare unbaa wuxuu dhan haysata dadkiina ma baraarujsana kuwii xataa aqoonta lahaayo waxaan garanayay kuma karaan inay dhaqdhaqaaqaan oo wixii ma badanaynayaan baad moodaa ma badanaynaysa not motivated marka laakiin waa laga bixi karaa haddii la shaqeeyo oo si jaamac sheegay oo kale loo guntado waa laga bixi karaa waayo waynu aragna markaynu isku duubannaho isku guntanahay inaynu wax qabsan karno waynu aragna Gunimiyo dibahata muto Doma layga saaray dhinacyagaay Daara hartan waxyeelaadihi dhaqdhaqe Caalanka dhidbaysow maa soo dirine dhegaystayaal waxaynu weli bartamaha kaga jirnaa barnaamijkii aanu ku falanqeynaynay doodii ku saabsanayd munaasabadaha isuwan ee 26 juun iyo 1 luulyo oo ay ka qayb qaadanayeen cabdi maxamuud qalac iyo fanik yuusuf jaamac anigoo ah cabdi guulad cilmina aan idin xiriirinayay Soomaalidu waxay tiraahdaa gaal dil gartiisana si waxaan isla garanay inay wadaniyadu tahay waxa qofka Soomaaliga ah loo baahan yahay in laga dhiso ilaa uu gaaro inuu ku kalsoonaado nidaamka iyo garsoorka cadaaladda waxaan isla aragnay in qabyaaladu ay tahay wax aad u xun oo dhibaato geysanaya laakiin dhinaca kale markaad fiiriso walaalayaal qabyaaladu waa caymiska qofka Soomaaliga ah ilaa loo sinaado khayraadka wadanka yaalo oo qofku uu ku kalsoonaan karo meesha uu wici lahaa in adeerkii ama odayga qabiilkiisa ah inuu wici karo dawladda uu caawinaad weydiisan karo miyaadan islahayn meesha waxa ka maqan khayraadkii dalka oo aan si cadaalad loo qaybsanaynin طبعا وان كان مرة عبدي وحوية تاسي وأنفلاي هاي وإن المحوكينو institutions وإن المحوكينو وإن الضفك ملاحظة لجهة الإنسان وأنا إن المدينة وحيارها قرن كويقية صديقه كله يقضياش قبيل كله وإن حل بسيط وإن مقرنسا parliamentary مقرنسا legislation لسميه ولي هذا محكمة اللي كتاب مقالي كتاب ما وإن هو الكود ليميت لقى له وإن أنا جري كذا هدي أي كلام عن قوام تفهمتي يعني شرعي كذي صارت وحويه ونسير بين القرآن إن نسيبه ونقمه وسيبه ونحرك له لنا كلام على جوه الضبط إن كود يقرأ كود اللي مقرنسا والدنيا تود يعرفه عدالة هو بالشقين والله جماعة مارما إنه عدالة بالشقين هدي مركب قمك الصوماليين وحول طلق تاحو وحول بعدين شغل الله ترتمي وإلي قيحمتها سيدي لوgu tartamay oo cadaalada oo dadku markay u tartamaan qof walba sida meelaha oo kale ay isarno isna adeer iyo kan iyo magaciisi aan wayn adigii kartidaada inkastoo aanay boqolkiiba boqol waxyaabahaas meelna ka suura jirin haddana in badan oo dadku ay aaminaan nidaamka iyo systemka waa gaari karnaa bismillahir rahmanir rahim horta waxaan rabaa in aan qabiilku maxuma inaad la yaataan warninkii odaga ahaayo maxaa ku dhacay qabiilku muxuu uga jeedaa qabiilku hadda today maanta aan joogno sida Soomaalidu qabiilka u isticmaashaa ma aha sidii qabiilku u soo dhaqmi jiray horta qabiilku waa wax taariikhi ah oo weli soo jiray oo ummadda Soomaaliyeed dawlad u ahaa
qabiilku dowlad buu ahaa ummadda Soomaaliyeed way ku soo dhaqmi jirtay iyaga dhexdooda ay ku macaamiltami jireen waxbay ku qaybsan jireen way ku kala nabadgeli jireen way ku wada daaqi jireen way ku wada cabbi jireen way maxaan ku yiraahdaa ku xididi jireen ma garatay system buuna lahaa iyo nidaam go'an oo la raaco sida akhlaaqiyaadkii caadiga ahaa iyo dhaqankeenii u baaba'ay ayaa systemkii qabiilku sida systemka dowliga ah inooga burburay oo kale ayaa systemka qabiilkuna inooga burburay weliba systemka qabiilka ah keligii iskama burburin waxaa la ogaaday weak pointska ummadda Soomaaliyeed leedahay inuu yahay systemka qabiilka ah asaga laftigiisii baa inta la horeeyey laynoo adeegsan marka hadda qabiilka jira oo Soomaalidu ku dhaqantaa waa qabiil hubaysan oo in uu lugooyo ummadda isticmaasho u keena maahe dantii ka tegay wey maxaa yeelay qabiilka dhaqanka ahaan muxuu ahaan jiray waxaa weeye haddii guud ahaan la fiiriyo wuxuu ahaan jiray iska caymis nin dulman u gargaaridiis nin baahoon sooristiis iyo gaadiid celiska aan ka soo qaadaya iyo nin gaadiid celis u baahan markii gaadiid celiski wax badan baa soo gelaya wuxuba waxay ahayd shakhsi la difaacayo oo economically dhaqaale ahaan socially ijtimaaci ahaan iyo economically dhaqaale ahaan cid u kaashado oo uu u noqdo leh oo qofka wellbeingska la waardiyeeyo ayay ahayd madaxdu qabiilada xukuntaa dictatorships ma ay ahayn intay iska soo istaagaan ummadaha kale ma caraadin jirin oo uma qaylin jirin waxay ahayd dadka intuu shiriyo geed ku shiriyo oo arrinta jirta soo dhex dhigu dhihi jiray ka tashado siday u jaajeexayaan markii ay inta isku xeeqaan go-aan gaaraan buu dhihi jiray go-aankaana lagu heshiiyey oo kaa xeerkii consensus baa geedkaas looga tali jiray qabiilku inta shiro kooxdan loo joojin maayo iyo cod ha loo qaado kooxda iyadaana badan oo kaayaga hala fuliyo iyo kala danaysigan iyo beladan xorxoraysiga dhaqankii qabiilka ma aha dhaqanka qabiilku consensus buu ahaa wax laysku raaco ahaa lagu midaysan yahay laysku jecel yahay laysku ilaaliyo qofba qofka kale ugu turo ah marka wuxuu ahaa advantage buu ahaa isticmaalkiisu markii la majaxaabiyey sidii systemkii dowliga ah laynooga majaxaabiyey loo majaxaabiyey ayuu wuxuu noqday wax dadka lagu dulmiyo wax wuxuu qofku usan xaqi u lahayn ku raadiyo wax maxaan ku idhaahdaa aan korba u soconayna hoos u socdo oo meeshii ummadda ilaahay intay isu timaado horumar ay kor u tiigsan jirtay kan silsilada hoos u socoto in la sii duma keliya ka shaqaysa waa qabiilkii ku urura marka qabiilkaanu maaha qabiilkii loogu talagalay waa qabiil u dumay dhaqan ahaan sidii kuwii kale laakiin dhaqankii qabiilka isaga laftiisu daaweyn buu u baahan yahay iyo intii kitaabku sheegay in loo isticmaalo baahina loo qabin oo xagga nidaamka dowliga waa inaan qofku marna qabiil u baahan waa mahadsantahay cabdi qarac qofka Soomaaliga waanu ka hadalnay oo waxaanu ka hadalnay qabyaaladu sida ay tahay laakiin ma isleedahay dhibaatada Soomaaliya ka dhacday oo ah in qabiilku uu nolosha qofka Soomaaliga galo waxa u soo baahaa oo waliba lug ku leh dadka qurbaha jooga oo iyaga laftooda qabiilkii iyagoo aan u baahnayn haddana u isticmaalaya danahooda gaarka
qayb bay ka tahay qayb bay ka yihiin waayo lacagahay jiraan waxbay qaribaan horta waxaa muhiima inay fahmo qabiilka berigii hore intayna dowladda noqon horta sidaa uu u sheegay jaamac oo waxay u nidaamin jireen waxay ahayd wixii aynu haysanay bay ahayd marka resourceski aynu haysanay inay isticmaalno bay ahayd khasab bay ahayd waxa ay xallin jireenna waxay ahaayeen waxyaabo kooban laba nin oo isu dhirbaaxday xoogaa qabiilo meel wax gaarsiiyey dabariyas yani waxyaabo kooban bay ahaayeen waxaa kaloo weheliya taas in dadka hawshaa geli jiray dana uga dambeeyey aanay jirin oo aanay doonaynin inay maaragtay iyagu faa'iido kale iyo maslaxado kale ay leeyihiin aanay hoosta ku wadin ayaa ila jirta daacad baa laga ahaa waxaa isbedelay haddee qaar baa yidhahda geedkii hala tago anigu waxaan ku idhahda wareeda geedkii lama tegi karo sababto waxay geedka looga hadli jiray scopekoodii iyo importancekoodii way limited laakiin hadda maanta waxaynu ka hadlaynaa dowlad iyo organisation iyo si wadan dhan sida loo maamulo iyo dad prestige iyo awood iyo magaciisa wax ballaaran baa jira ballaaran marka tii geedka suuragal maahana tan nidaam kale oo lagu xaliyo waa inaynu helo marka qabiilka maanta joogaana kii oo kale maaha kani waa mid dowladdii la tartamaya oo hub haysto oo ciidan haysto oo abaabulan oo balaayo ah oo dhaqaalo haysto oo meel walba laga soo waxaynayo marka kaa waxa weeye inaynu absolutely aanu kaa ka takhalusno waa lagama maarmaan dadka dibadda jooga waa qayb bay ka yihiin mashaakilka waayo lacagtay dirayaan propaganday wadaan social mediahay ka wadaan meel walbay ka wadaan يعني واحد دنا وجود أنا ما تجان واحد مضره يقرأ حما ويا هم تعمل سيدا مو أركو مركا جابك الصومالية يجي تاي وواجب كنت أنا قرتان محاي نوشة تاني محاني نوشة تاني محاب دني نوع محان دني نوع هاي قبيل كنا أدون كمان أبسوليت ويميل بوا كنا ما بين هذا هنا لو ده كده كان أنا ما حتى كدين كي هاي شيء كنا بين ما هو متكلم دوا مقرأ ومونستر marka waajib bay ku tahay dadka Soomaaliyeed inay arrinta go'aan ka qaataan oo qabiilka meel ku xiraan absolutely hadii kale waa faafayna meel ma tegin Soomaalidu waxay tiraahdaa hal la tukado loo kala tagi waa waxaan shaki ku jirin dhamaanteen isku raacsanahay in halka sartu ka qorantay ee dhibaatadu ka taagan tahay ay tahay nidaamkii dowladnimada iyo dhaqanka iyaga qabiilka ku dhisan oo isdiidan oo aan iswaafaqsanayn waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan siinayaa qof walba 2 daqiiqo oo gunaanad ah munaasabada darteed iyo dardaaranka uu jeedinayo ummadda Soomaaliyeed jaamac mahadsanid cabdi waxaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan u tahaniyadeynayaa maalmaha xorriyadda oo 26 Juun oo aynu soo dhaafnay 27 Juun iyo 1 Luulyo oo inagu soo aadan dhammaantiin waxaan idin leeyahay kuwa ku ciideeda xorriyad iyo horumar iyo barwaaqo iyo nabad iyo isafgarad Allah inaga wada dhigo waxaan dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha sharci dejinta oo Soomaaliyeed ayagana ugu baaqayaa in maadaama maamulkii ay gacanta ku hayaan inaad ummadda Soomaaliyeed soo doojisaan oo aad u jidaysaan waxyaalaha shuruucda ah oo ama constitution ka noqdo ama shuruucda kale oo wadan ka soo baxaysa ama maamulkiinaba ha noqdee in aad mar walba maskaxda ku haysaan ummadda Soomaaliyeed waxa tilaabadaas qaadaysaan mid ay ku kala nabad gasho oo aan dib inoo celin in ay noqdaan waxaan ku kalsoonahay in ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed aan weyn u leedahay wadankoodu inuu horumaro oo wadan ku dhismo dowlad waafiyana la helo qaabkii loo mari lahaa baa lagu kala duwan yahay laakiin ujeedada guud sidaas weeye Allah ku guuleeyay ayaan leeyahay hadba intii maamulka haysa waxaan shacabka Soomaaliyeed kula dardaarmaya ayagana in wuxuu waa tilaabe qof walba ka bilow ilmaha aad korinayso oo korku fiirinayo oo aad role model-ka u tahay qof ku dayda aad u tahay in aad ku barbaariso wadaninimo wadankiisa iyo dadkiisa jeclaado wiilka faciisa ama gabadha faceeda oo la da'daana walaalkiis dalka la difaacaya inuu aqoonsado waad mahadsantihiin waxaan idin rajaynayaa guul iyo gobonimo cabdi walaal waxa weeye waxaan shaki ku jirin inaynu u baahnaa isbedel inuu yimaado taa shaki kuma jiro laakiin waxa weeye isbedelkaas sidee ku imanayaa iyo dadaal noocee u baahan yahay iyo
waxyaabahaasa la rabaa in laga hadlo wax walbaana waxay ku xiran yihiin anugu sidaan qabo dadka wadanka u taliya mayla socota cabdiyo si fiican dadka wadanka u taliya ayay ku xiran tahay waxaa la yidhi mas madaxa laga dilaa arrimuhu halkaas ay ka bilowdaan haddii dadka wadanka u taliya oo ma garanaysaa madaxweynaha leh oo baarlamaanka leh oo maxkamadaha leh oo ma garanaysaa iyo kuwa kale oo saamaynta leh oo warbaahinta leh oo wax walba hadday ku talagalaan ummadooda inay baraarujiyaan oo si daacadana ugu shaqeeyaan baraarujiyaanna waxa saxaana ku hogaamiyaan dadku waa hogaansamayaan wax walbaana waa hagaagayaan taa weheliya in la qeexo waxyaabaha lama taabtaanka ah redline-keena in la taabto waxaas la yidhahdo waa redline qofkii halkaa gala qaranka iyagu duminaya meel baan uga soo horjeednaa tilaabaanu ka qaadaynaa haddii aynan qaranka runtii u hurin dadaal iyo ma garanaysaa cadaalad iyo ma garanaysaa shaqo haddaynaa gelin way adagtaa in baryo waxba kuma hagaagayaan qaramada la dhisay oo dhan adduunka inaad xoog baa lagu dhisay rag baa usoo baxay dad baa usoo baxay yurub iyo wadamadan haddaad fiirisid kulligood dad baa usoo baxay jarmalka fiiri ninkii la oran jiray magaciisa bismarck isu usoo baxay faranjiga fiiri regulationkii iyo markii kacaankoodii ka dhacay maraykankan fiiri ragga usoo baxay oo magaranaysa ingiriiska riday meel walba xataa ingiriiska dimuqraasiyadooda halkaan lama jeenin warka waa la qasbay dad baa soo baxay marka inaguna waxaa waajiba in dad soo baxo oo waxaan si nidaamsan oo daacada oo ay lilaahi ka yihiin uga shaqeeya markii lilaahi iyo daacad jirto oo madaxdu daacad tahay oo vision leedahay oo wax qabanayso dadku waa hogaansamanaya waa inay taa barbar socoto nidaam sharci oo jiro oo lagu xadidayo uganda waxaa la yidhi dadka kama hadli kartaan qabiil uganda isbaana hayde ma dhihi kartid hutu baan ahay tutsi baan ahay oo maxaa inoo diiday inaynu intaasoo kale la nimaadno oo qofkii ku xadgudbana aakhira loo dhaadhiciyo tilaabo laga qaado sida kuwa kale ay maaragtay ugu maaragtay cashar ugu noqoto maxaa inu laba cabayna ku jiraa laba iyo magaciisina waxaana waxba kuma hagaagaya waa waktigaa inooga dhimaya waa mahadsantiin odayaal barnaamijkan runtii waa fiicnaa aad baana uga helay anuu in dadka soomaaliyeedna iyana sidaasoo kale ay uga heli doonaan una istaagi doonaan qarannimo say ku dhisi lahaayeen waxaan rajaynayaa inuu barnaamijkani bilow u noqdo kuwo badan oo taxnaha oo soo socda oo mawduucyo kala duwan aanu ku jexjexno si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa labada oday ee ka qayb qaatay barnaamijkan maxamuud cabdi qalaac iyo fanik yuusuf jaamac oo labaduba marti ugu ahaa barnaamijka anigoo ah qofka barnaamijka xiriirinayay cabdi guuleed cilmi dhammaantiin waxaanu leenahay intaanu mar kale ku kulmayna barnaamij kale oo xiiso badan waa mahadsantihiin soo dhawaada walaalayaal أخذ عن